sanad walba bisha Oktoobar 17keeda waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland laga xusaa xuska maalinta mujaahidka SNM. maalintan oo ah maalin ay ururkii SNM ay dagaal qaraar la galeen taliskii militariga ahaa ee Siyaad Barre. haddaba Anis Cabdilaahi Ciise oo ka mid ahaa dhalinyaradii waqtigaasi halganka gudaha iyo dabadaba ka qayb qaatay ayaa waxa uu bilaabay muddo imika laga joogo 3 sanadood in maalintaasi lagu laro socod dheer oo dib lagu xasuunayo ayuu yiri halgankii adka ee guuraha iyo habeen dhaxal lahaa ee dhalinyaradii ururkii SNM ay soo galeen dalkan xoriyadiisa. Anis Cabdilaahi Ciise oo maanta magaalada Berbera kula hadlay warbaahinta ayaana sheegay in socodka sanadkan uu ka bilaabi doono degmada Sheekh ilaa degmada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer masaafo dhan 60 kiiloomitir. waxaanu baaq u diray cid kasta oo ka soo qayb gali karta socodkaasi dheer oo dib lagu xasuusanayo halgankii qaraara ee ururkii SNM u soo galay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan bilaabay socdaal ah maadaama ay tahay bisha Oktoobar 17keeda xuskii mujaahidiinta SNM. socod baan bilaabay sanadkii 2017 socodkaas oo ah xuskii mujaahidiinta SNM. sanadkan oo ah 2020 waa sanadkii afraad ee socodkaasi oo aanu sanadkan ka bilaabi doono magaalada Sheekh annagoo ku tagaynaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer. socodkan waxaan uga dan leeyahay in aan xuso mujaahidiintii SNM ee wadankan aynu ku raaxaysanayno dhiigooda qaaliga u horay, mujaahidiintii inoo suuro geliyay inaynu raaxada ay maanta Soomaaliland ku nooshahay kuwii keenay, inay ogaadaan inay jiraan dad u og abaalkii ay u soo galeen. at least socodkani wuxuu tusayaa inay jiraan dad u og abaalkii ay wadankan Soomaaliland u soo galeen. anigoo ah qurba joogta oo ka imi cariga Mareykanka magaalada madaxda Washington DC waxaan idin sheegayaa dhammaan Soomaaliland ciddii kari karta inay socodka dheer aanu ka bilaabayna Sheekh iyo Burco waxay isku jiraan baan u malaynayaa 55 ilaa inta u dhaxaysa 55 ilaa 60 mayl. in qof alla qofkii reer Soomaaliland ee kari karaya inuu raaco ama 5 mayl ama 10 mayl ama 20 mayl wuu u furan yahay. socodka waxaanu ka bilaabaynaa magaalada Sheekh maalinta Sabtida ee ay bishanu tahay 17 oo ah xuskii mujaahidiinta SNM. waxaanu bilaabaynaa socodka marka la tukado salaada subax. marka anyone Somaliland haddaad joogto Burco, haddaad joogto Berbera, haddaad joogto Sheekh iyo haddaad joogto Hargeysa diyaar baanu ku nahay inaad nagala qayb gasho intii aad kari karto. marka waxaan leeyahay hal loo ogaado wadankan aynu maanta ku raaxaysanayno mujaahidiintii SNM ee xoreeyay. anigoo ka mid ahaa laftaydu mujaahidiintii SNM ka bilaabay 1985kii magaala madaxda cariga Mareykanka ee Washington DC. waxaan idin leeyahay Somaliland waa la doogiyay yaan la dacaroon. Yaasiin Jaamac Ali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.